يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار. مرحب بك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. waxaynu joognay darsigeennii fahamka soonka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi taraawiixdii iyo siduu u tukan jiray baynu ambaqaadkeedii bilownay oo ka hadalnay qaybtii hore ee darsigeennan kani hadda waa xalqadii afaraad. nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha markay ka warramaysay waxay leedahay kaana rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam laa yaziidu fii ramadaana walaa fii gayrihi calaa 11 rakca. rasuulku ramadaan iyo kayrkeedba ama ramadaan ha noqoto ama yaanay noqon kama kordhin jirin taraawiixda ama qiyaamuleylka uu tukanayo 11 rakco salawaatullahi wasalaamu calayh. marka qofku ma ka kordhin karaa isagu oo maalan 21 rakcadood ma tukan karaa, 30 ma la tukan karaa, siyaado 42 ma la tukan karaa, ha wax dhibaataa ma laha. salafkii khulafaa raashidiinkii waa ka sugan tahay, la odhan maayo ma banaana, laakiin sida ugu fadliga badan ee alla agtii ugu fadliga badani waa taa 11 rakcadooda ee la tukado. waayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyay salaatu leyli mathnaa mathnaa, salaada habeenku waa labo labo, bimacnaa labaa tukanaysaa waa ka baxaysaa, labaa tukanaysaa waa ka baxaysaa, waa labo labo nebigu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi. faidaa khashiya axadukum asubxa, haddii qofkiin isagoo iska tukanaya uu ka cabsado armaa salaadii subax ay kugu dhalataa, awtara biwaaxidatin, hal rakacad buu ku witrinayaa oo intii kale uu soo waday labalabada ahaa midh buu ka dabageynayaa. tuutiru lahu maa qad sallaa, taasaa marka waxay witir u noqonaysaa iyo tiro dheeraada u noqonaysaa maxaan ku idhaahdaa wixii uu soo tukaday buu nebigu yuri salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. sidaa awgeed marka salaadaha hadda qiimaha badan bay leeyihin sunnayaasha qofku inuu barsado cimrigiisa intuu noolyahay. salaada faradka oo kale hadda hal sano qofkii toos u tukada waa faradka keliya oo sunnaba aan tukan, maalintii waa 17 rakacadood. 17 rakacadood marka lagu dhufto 30 habeen ee bisha marka lagu dhufto 510 salaadood bay noqonaysaa. 510 salaadood 12 bilood marka lagu dhufto waxay noqonaysaa allahumma musta'aan 6120 bay noqonaysaa. hadaani kaba badan 6120 ayay noqonaysaa. waa faradkii keliya sanadkii intaasaa laguu qoraya. sunnayaasha badsigeeduna faa'iido cadiim uu leeyahay. qiyaamu leylkuna kumaba gaar ahaa qofku maxaan ku idhaahdaa inuu taraawiixda keliya tukado xilliga ramadaanta ah. rasuulku wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam xadiidkaynu xalqada hore ku sheegnay ee muslim soo saaray, man qaama maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leylatin, qofka imaamka isla taaga oo salaada la gala intuu ka dhammaysanayo waxaa loo qorayaa ilaahay agtii habeen oo dhan inuu cibaado iyo salaad u taagnaa ayaa laguu qoraya. sidaa awgeed walaalayaal waxaynu rabnaa inaynu ku dadaalno in cibaadadka iyo khayraadka bisha ramadaan laga faa'iidaysto oo aynan wakhtigeenna ku dayicin wax maalaa yacni ah, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu tusno beyj cusub oo aynu toobadkeen aynu nahay. waayo albaabadii naartana waa la xidhay, albaabadii jannadana waa la ballaqay, shayaadiintii dadka naarta ku tukhaynaysayna waa la xidhxidhay. jaaniska cidda loo baneeyey waa ayo? cidda loo baneeyey jaaniska waa adiga oo fursadda lagu siiyey, noloshiina habeenna laguu daayay inaad ka faa'iidaysato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad cibaadadiisa ku dadaashid. waxaynu ku ururinaynaa qur-aanka akhrintiisana in lagu dadaalo in sha allahu tacaala. qofku wuxuu samayn karaa salaad kasta markaad tukatid dabadeeda nusa saace qur-aanka haddaad akhriso oo 5 salaadood min nusa saace kadib aad qur-aanka akhriso, waxaa laga yaabaa inay kuu suuro gasho maalintii 5 juz inaad akhriso qur'aana ama 4 juz. 4 juz markaad akhrisid bishii intee jeer baad qur-aankii dhammaynaysaa. marka waxa weeyaan 10kii cishaba waxa weeyaan qur'aanka markaad 5 cisho markaad joogtidba waa 20 juz baad akhris. 5tii cishaba 20 juz baad akhrinaysaa. 5tii cishaba 20 juz bay noqonaysaa.
marka in qofku ku dadaalo qur-aanka akhrintiisa bishan ramadaan howlaha kale la iska yareeyo ayaynu isku dardaarmaynaa darsigeena xalqada afaraad intaasuu ku egyahay astawdicukum allah wasalaamu calaykum waraxmat ullah منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح نلينا شعار ونلقى البركة في الأسحار